بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. walaalayaal mar kale ku soo dhowaada mu'tamarkeennii 15aad oo ay soo wada qabaqaabiyeen waddamada Scandinavian-ka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisii inoo noqday sanadkii 15aad oon sidan oo kale u qabano. marka dhammaan intiina waddamada kala duwan ka timi ama waddanka lagu qabanaya Sweden joogta, mar kale ku soo dhowaada mu'tamarkii 15aad iyo muxaadaradii labaad. muxaadaradeenna labaad sida aad waraaqaha ku haysataan jadwalka inoogu qoran waa muxaadaro ku saabsan baari u noqoshada waalidka. waxaana inoo soo jeedinaya sheekh maxamed idris oo hore wada taqaanaan oo iga baahnayn hadda inaan tacriif badan idinka siiyo, oo uu degaankiisu yahay dalka Saudi Arabia. marka insha allahu tacaala waxaan ku soo dhoweynayaa sheekh maxamed idris muxaadaradii labaad ee mu'tamarka. sheekh maxamed idris falyatafadal mashkuura. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa kulankan aan isugu nimi ee mu'tamarkan sanadlaha ah ee masjidkan barakaysan aan isugu nimi inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga dhigo kulan barakaysan oo ilaahay naxariistiisa iyo sakiinadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyo. waxaan ilaahay ka baryayaa inuu carabkayga qalbigayga ku sugo kelimadda xaqa ah ee sawaabka ah. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qalbiyadiina iyo dhegihiinaba u furo, nagana dhigo alla subxaanahu wa tacaala kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca. aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah ulaa'ika aladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum ulul albaab. intaa kadib mowduuca kelimadan wuxuu ku saabsan yahay u baarifalidda waalidiinta. wuxuu noqon doonaa ilaahay idankii sidaan uga hadli doono marka u horeysa inaan fadliga uu leeyahay birul waalideynka ama waalidiinta oo loo baari noqdo fadliga ay leedahay ilaahay agtiisa. mar labaadka inaan ka hadlo noocyada loogu baarifali karo. qodob saddexaad wuxuu noqon doonaa aadaabta ay leedahay u baarifalidda waalidiinta, aadaabta la rabo inay laazimaan caruurtu waalidkood si ay ugu baari noqdaan. qodobka afraad wuxuu noqon doonaa hooyadu xagga baarinimada inay aabbaha ka horeyso oo ay kaga xaq leedahay iyadoo labadooduba ay xaq leeyihiin. qodobka shanaad wuxuu noqonayaa inaan bal wax ka aragno dadkii wanaagsanaa ee inaga horreeyey, bal siday u baarifali jireen iyo baarinimada siday u samayn jireen inaan iyadana wax ka jalleecno. qodobka shanaad wuxuu noqonayaa geeridooda kadib sida loogu baarifali doono.
ma noqonayso keliya noloshooda keliya baarinimadu xataa haddii ay geeriyoodaan oo fursadii ku dhaaftay ama aadan ku baraarugsanayn geeridooda kadib ayaad baari u fali kartaa. arrinka lixaad aan ku soo khatimayno waxa weeye in laga digo arrinka ka soo horjeeda oo ah in waalidka lagu caasiyo ama aan baari loo falin oo cuquuqul waalidayn waxa la yidhaahdo iyo ka digiddiisa inaan isagana aan wax yar markaa ka taabanno iyo sheekooyin ku saabsan. haddii aan bilaabo marka hadalkayga inta aanan u gelin qodobadaas inaan si tafsiilah wax uga taataabto, waxaan jeclahay inaan aayaad qur'aana ka horumarsado insha allahu tacaala, maadaama qur'aanka kariimka ah uu yahay midka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga dhigay caafimaadka iyo hanuunka, ilaahay nooga dhigay jidka toosan ee loo baahan yahay inaynu qabsanno. jidka toosana haddaynu raacno ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu ballan qaaday inuu jannada noo daadihinayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الحمد لله waxaan ka hadlaynaa walaalayaal waa waalidiinta iyo in loo baari falo ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiinta fadligooda iyo baarinimadu fadliga ay leedahay nusuus badan buu alle subxaanahu wa tacaala ku sajilay qur'aankiisa kariimka ah qaar ka midana aayadihii hadda aan dhegaysanay ayaa aad ka arkayseen oo laba nebi oo nebiyada ka mid ah nebiyullaahi yaxya wa nebiyullaahi ciisa calayhim assalaam labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay wiilal baariyaala ilaahay subxaanahu wa tacaala yaxya calayhi الsalaam wuxuu yihi wa baran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran shaqiya walam yakun jabbaaran casiya caasi ma ahayn jabbaar mid hadal adag oo camal adag oo camal xun ma ahayn wuxuu ahaa mid baari waalidiintiisa u ah nabiyullaahi ciisana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kan carabkiisa inoogu sheegaya isagoo yar oo xanduulka ku jira inuu yidhaahdo wabaran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya waxaan halkaa ka arkaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dhinac naga tusayo qofku haddaanu baari noqon wuxuu noqonayaa jabbaar shaqiya ama caasiya taasaa dhinaca kaleeto u taalla
marka inuu baari noqdo waalidiinta baari u ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli kaga noqdo waxa beddelkeeda ah oo maqaabilkeeda ah ka soo horjeedaa waxa weeye inuu noqdo jabbaar shaqiya oo aan khayr lahayn oo ayaan daran walaalayaal waalidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sabab uga dhigay joogitaankeenna iyo jiritaankeenna adduunkan inaan joogno labadaas qof ee aabbaha iyo hooyada ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uunkeenna sabab uga dhigay isagoo dadka uumay wuxuu sabab uga dhigay aabbaha iyo hooyada marka waa labada qof oo sabab u ah inaad jirto oo bacd allahi subxaanahu wa tacaala kugu fadli badan oo adiga kugu leh abaal kugu leh sidaas darteed ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu xiriiriyey markaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celiso oo ilaahay u shukrido waa inaad waalidiinta iyagana u shukrisaa oo u mahad celisaa maxaa yeelay khalqigii uumidda ahaydna oo koowaadna ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iska leh sababtii adiga jiritaankaaga ahaydna iyagu ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigay saas darteed buu ilaahay isku xiriiriyey wuxuu anishkur lii waliwaalidayka cid kaleeto uu ilaahay ku soo xiriiriyey mahad celintiisa ma jirto aan waalidiinta ahayn anishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir alle subxaanahu wa tacaala aayado badan buu marka ku tilmaamay oo ku xiriiriyey tawxiidkiisa iyo alle subxaanahu wa tacaala garashadiisa xaqiisa in la garto oo xaqa koowaada oo ah in la caabudo oo si xaq ah loo caabudo oo aan cid kale la caabudin ayuu alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xiriiriyey waalidiinta iyo xaqooda in iyagana la ogaado oo la ilaaliyo siduu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shayئan wabilwaalidayni ixsaana cibaadadii ilaahay subxaanahu wa tacaala labadii amar oo ugu darnaa amar lays amro iyo wax layska reebo waxa ugu daran waxa weeye in lagu faro cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala amarka ugu weyn oo lagaa reebana waa inaadan ilaahay subxana wa tacaala u shariik yeelin cibaadadiisa wuxuu ku xejiyey alle subxaanahu wa tacaala labada waalid in loo ixsaan falo wawasayna alinsana wabilwaalidayni ixsaana aayado kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi wawasayna alinsana biwaalidayhi ixsaanan insaanka waxaan faraynaa oo la faray labada waalid inuu ixsaan u falo yacni inuu wanaag iyo baarinimo iyo tixgelin iyo qadarin iyo ixtiraam iyo u adeeg iyo daacad inuu kula socdo labada waalida dhashay markii sidaas si guud ahaaneed loo faray ayaa hooyada marka si gaara alle subxaanahu wa tacaala aayaad badan ugu tafsiiliyay iyada xaqeeda oo si gaara len waxyaalo badan ayay aabbihii kala gaar noqotay iyaga oo labaduba ku shirkoobay qodobkaas si gaaraan uga hadli doonaa in sha allah wuxuu kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila إiyaahu wabilwaalidayni ixsaana wabilwaalidayni ixsaana wuxuu ilaahay isku xidhiidhay cibaadadiisii uuna faray inaynu isaga cibaadada u khaalis yeelno iyo ixsaankii waalidiinta loo falayay weliba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xidhiiriyey ba'daas wabilwaalidayni ixsaanan mar walbaba xiriirin ixsaan xiriirsan oo aad la dul taagan tahay iyo daacad aad la dul taagan tahay wixii aan macsi ahayn iyo quudin iyo dhinac walba oo wax wanaaga aad ku xiriirinayso inuu noqdo xiriir arrin aan kala go' lahayn oo aad la dul taagan tahay oo aad la dul joogto oo aad ugu adeegayso oo aad ku qadarinayso oo baarinimadooda aad la dul taagan tahay inuu noqdo arrinkaas waxaa kaloo halkaa laga fahmayaa inuu noqdo ixsaankaasu sidayan adigaba kuu dayici jirin markii aad yarayd ooyan meel cidlaa kaaga tegi jirin inaadan meel cidlaa kaga tegin meel cidla ah inaadan kaga tegin zamanadan dambe walaalayaal waxaa badatay xuquuqul waalideynka waana calaamaadka saacada waxaa badatay ninku inuu ilmihiisa ka hormariyo oo iyaga raalligelintooda wax walba ku bixiyo
oo iyaga uu maaragtay xoolo iyo tabar wuxuu hayo oo dhan geliyo waalidkuna ay iska yeeshaan wixii hadhow lagama maarmaana wixii laga maarmi waayo inay iyaga maaragtay haddii guri la rabo haddii lacag la rabo haddii dahab la rabo haddii xoolo kale la rabo haddii meel wanaagsan la seexanayo haddii meel loo dhoofayo haddii meel la aadayo kulli waxaa leh ilmihiisa iyo xaaskiisa ama waalidiinta wixii hadhow intaa ka soo hara oo futaadka ah haraaga wixii soo hara ayaa maaragtay iyagu ay wax ku leeyihiin arrimahaas waxay noqdeen arrimo shaa'ica oo badan oo fara badan waayadan dambe iyo zamanadan dambe waana arrin halisa oo mawaasiintii isku qaldaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka manaasishuu dhigay iyo qof walba meeshuu dejiyey aan la dejinayn allah subxaanahu wa tacaala waalidiinta u ixsaanfalidooda iyo naafaqadooda cibaadadiisii buu ku xiriiriyay allah subxaanahu wa tacaala baynamaa ilmaha hal meel ama laba meel adiga lagaaga dardaarmay laakiin waalidiinta la adkeeyey dardaaranka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dardaarmay wawasayna alinsana biwaalidayh ixsaanan xamalathu umuhu kurhan wawadacathu kurha waxamluhu wafisaaluhu 30 shahra xatى إida balغa أshuddah وbalغa 40 sanaة qala rabi أwزicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya وعlى waalidaya وan أcmala صaalixا tarضaah waxaa marka loo baahan yahay walaalayaal in ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiinta meeshuu dhigay iyo dardaarankuu ka dardaarmay in la adkeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dardaarankiisa haddaan la adkayn waxaa ka dhalanaysa alla subxaanahu wa tacaala inuu caroodo hadduu caroodana alla subxaanahu wa tacaala waxbuu ciqaabaa naar buuna leeyahay alla subxaanahu wa tacaala uu dadka cusaada ah ee caasiyey awaamirtiisa ka leexday oo alla subxana wa tacala u diyaarsaday walidaalika ayaa arrinkaasu arrin halisa yahay haddii aan xilla iska saarin oo la dareemin ama nebiga calayhi salaatu wasalaam dhowr xadiis baan ka soo qaadanaynaa bal isaguna meesha uu dhigay waalidiinta iyo ixsaanfalidooda waalidiinta u ixsaanfalidoodu waa sabab weyn oo jannada lagu galo wey albaabada jannada albaabada ugu waaweyn ayay ka mid tahay waalidiinta u ixsaanfalidooda baari u noqoshadooda inaad ku gasho oo acmaaloo dhan ka horeysa acmaaloo dhan ka hormariya nebigu calayh isalaatu wasalaam siduu leeyahay abu hurayra radia allahu canhu muslim iyo tirmidi bay siday warinayaan wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ragima anfuh uma ragima anfuh uma ragima anfuh yacni qofkaasu waa qof dulloobay oo afka ciidda la galay dullinimo oo dhacay oo kufay oo khayrka xaggiisiiba aana nasiib ku lahayn waan yaabay abu hurayra radia allahu canhu wuu yidhi waan yaabay man yaa rasuula allah waa kuma kan saa u dulloobay oo hoogay oo halaagsamay qaala man adraka waalidayhi cinda alkibar axadahumaa aw kilayhima qofkii soo gaaray labadiisii waalid oo weliba da' ku soo gaaray midkood ama labadoodiiba uma lam yadkhul iljanna oo haddana aan janno gelin say u suurtoobi kartaa macnuhu waxa way say ku dhici kartaa qof janno haystay oo jannadii albaabkeedii geli waayey say ku dhici kartaa waa dullinimo iyo ayaan daro iyo hoog iyo halaag marka waa sabab weyn oo janno lagu galo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabada jannada uu furay arrin kale waa arrimaha ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha ugu jecel yahay ayuu birulwaalideynku darajaadka ugu horeeya ka gelayaa sida ku cad xadiiska cabdullahi bni mascuud radia allahu canhu ee bukhaari iyo muslim bay warinayaan
wuxuu leeyahay sa'altu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam ayu اlcamali axabu ilى اllahi camalka kee ilaahay ugu jeceliya qaala aلصalaaةu calىa waqtiha aلصalaaةu calىa waqtiha salaada oo waqtigeeda lagu tukado qultu ثuma ayu maxaa ku xiga rasuulkii allow qaala biru اlwaalidayn qultu ثuma ayu qaala aljihaadu fi sabiili الlah waa xadiis mutafaq calayh xadiiskaas wuxuu geliyey darajadii labaad ayuu geliyey bal xataa jihaadkiibuu ka hormariyey axaadiis kalena way ku cadday inuu jihaadkii xataa ka horeeyo sida ku cad xadiiska cabdullahi bni camr bn caas radia allahu canhuma wuxuu yidhi aqbala rajulu ila الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nin baa nebiga alayh الsalatu salaam u yimi faqaala ubaayicuka calى اlhijrati wاljihaad abtaqi اlأjra min allahi tacaala waxaan kugula baayactamayaa oo beeca kugula gelayaa ballan adag kugula gelayaa rasuulkii allow jihaad iyo hijro inaan kuu soo hijroodo anuu ajar ilaahay kaga raba nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi intaanu su-aashii uga jawaabeen hal min waalidayka axadun xay labadaadii waalid cidi ma ka nooshahay mid ma ka nool yahay qaala nacam bal kilaahumaa labadoodiiba waa joogaan buu yidhi qaala wuxuu ku yidhi nebigu calayh الsalaatu wasalaam fatabtagi اlأjra min allahi tacaala oo ajar baad ilaahay ka rabtaa qaala nacam qaala farjic faaxsin suxbatahumaa sow ajar ilaahay kama rabtid oo ma raadinaysid oo hijradan iyo jihaadkan aad leedahay waan kugula beeca tegayaa waxaad ka rabtaa ajar ilaahay haa noqo oo iyaga wanaag iyo ixsaan kula soco suxbatahumaa la socod way ku lamaanaan maaha xaggaasaan ka tuuri anna xaggaasaan aadi mashriq iyo maqrib baan ku kala tuuri warna kama hayo waxna kama hayo maya wuxuu yidhi faaxsin suxbatahumaa la socodkooda iyo la jirkooda hagaaji iyo adeegooda waa xadiis muttafaqun calayh ah muslim baana lafdigaa iska leh riwaayad kaleeto wuxuu la yidhi nebigu alayh slat slaam markuu ninku u yimi oo jihaadka uu u idin dalbaday inaan kula jihaad galaan rabaa rasuulkii allow qaala wuxuu ku yidhi axayun waalidaak labadii ku dhashay ma nool yihiin qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid iyaga ku jihaad yacni jihaadkaagu waxa weye iyaga inaad u ixsaanfasho u baarifasho u adeegto hagaajiso wanaajiso ayaa u noqon xadiis afraad nebigu calayhi الsalaatu wasalaam oo tirmidi uu sanad saxiixa ku wariyey wuxuuba caddaynayaa waalidiinta raalinimadooda inay raallinimada ilaahay ku jirto caradoodana carada ilaahay subxana wa tacala inay ku jirto bimacnaa haddii waalidiintii raalli kaa yihiin oo qalbiga ay kaaga ducaynayaan ilaahayna subxana wa tacala raalli buu kaa noqon haddii ay iyagu caraysan yihiin oo qalbiga wax ku haysta ya waalidku badanaaba ma muujiyo caradiisa hooyadu khaasatan waxa weeye insaanka ama makhluuqa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan korkiisa uu saaray oo ku abuuray oo diyaar u ah inuu wax walba huro waxna aanay uga soo noqon haba yaraatee makhluuq kasta oo aad wax u wanaajiso oo wax u samayso xaaskaaga ilmahaaga asxaabtaada tolkaa dadkaa kullu nin walbi waxa weye waxbuu kaa rabaa hadduu waxa kaa waayo ku nac laakiin iyadu ma ku jirto waalidkaa kuma jiro bani aadamka adduunka ugu liita haddaa ta ugu nacsan waa ku rabaan waa ku jecel yihiin waa ku koolkoolinayaan cerkay ku geynayaan xidigaha ayay ku saarayaan ya wax walba haddaad dadka siiso oo iyaga aan waxba uga soo noqon oo ay kugu soo tacbeen oo kugu soo rafaadeen oo dartaa ay dhiig uma tageen isla mar ahaantaas haddana diyaar waxay u yihiin weli inay wax walba bixiyaan oo kuu huraan adiga waa makhluuqa sidaasah oo aan waxba doonahayn waa makhluuqa sabirkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala un keliya uu uga abaalgudi karo cid ugu abaalgudi kartaa ma jirto bani aadama
yaa u abaalgudi karaa hooyo yaa u abaalgudi karaa haddaad dahabka adduunka oo dhan siiso uma abaalgudi kartid haddaad xoolaha adduunka yaaloo dhan dusha kaga shubto ma abaalgudi kartid in yar xataa abaalkeeda kama gudi kartid cabdullaahi ibni cumar ayaa wuxuu arkay nin hooyadiis dusha ku sida garbaha ku sida oo la dawaafaya kacbada kula dawaafaya oo xajkii la socda oo dusha ku sida markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cumarow hooyaday saasaan u sidaa buu yidhi xajka saasaan ku keenay abaalkeedii ma guday markaasuu yidhi hal harraatiyo caloosheeda markaad ku jirtay aad ku dhifatay maadan gudin harraati miyaadan arag xaaskaagu markay uurka leedahay oo maalin walba markuu uurku soo kordh caloosha soo weynaato tacabkeeda iyo dhibkeeda iyo rafaadkeeda way soo siyaadaysaa ma seexan karto oo si wanaagsan uma jiifan karto oo si fiican uma fadhiisan karto oo markay kacayso waa rafaadsanta oo markay fadhiisanayso waa rafaadsanta saasoo ay tahay wax walba aday kaaga farxad badanta inaad sidaa u dhibto way ku macaansanaysaa cabdullaahi ibni cumar baa wuxuu ku yidhi maxaa yeelay adigu wuxuu yidhi dusha waxaad ku sidaa adoo isleh goormay kaa degaysaayo aad dhulka dhigaysaa jecel inaad dushaada ka dejiso ood dhulka dhigto iyaduna waxay ku qaadi jirtay iyadoo jecel inaadan dusheeda ka degin ee ay ku sido oo dusha kugu wado markaynu weynaanay oo xoog yeelannay oo tabar yeelannay oo xaasas yeelannay carruur yeelannay ayaan waxaan u malaynay inaan sidan ku dhalannay oo sidan annagoo ah aan adduunka nimi saas darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rida rabbi fi rida alwaalidayn wa sakhat rabbi fi sakhat alwaalidayn raalinimada ilaahay waxay ku jirtaa raalinimada waalidiinta carada ilaahayna waxay ku jirtaa carada waalidiinta waxaa ka mida fadligiisa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo sabab dhibaatooyinkaaga iyo rafaadka iyo kurbooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga faydo oo dhibaato kasta oo culus ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha uu dadka kaga saaro inay ka mid tahay birul waalidiinka waxaana u daliilay xadiiskii saxiixaynka 3 nin oo dadkii hore ah uu nebigu alayh slat slam nooga sheekeeyey oo god ku dumay meel cidlo ah iyagoo maraya oo yidhaahdeen maanta godkan waxayna maqlaaya iyo meelan uga bixi karnaa ma jirtee camalka ugu wanaagsan qof walbo waad samaysa bal soo sheeg waxaa ugu horreeyey ninkii baarinimada waalidkiisu falay oo habeenkii o dhan caanaha la dul taagnaa soo lisay caanihii ay seexdeen ayuu habeenkii o dhan korkooda la taagnaa oo aanu lana fariisan cid kalena siin haddaan arrinkaa ilaahay dartiis u sameeyey ilaahu naga fayd buurtii baa dhaqaaqday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhinacu uga furay amaa walaalayaal siyaabaha baarinimadaas loo gudan karo oo anwaacdiisa ah aad bay u fara badan tahay siyaabo badan ayaad ugu baari fali kartaa waalidiinta waxaa ka mid ah wanaagga iyo xiriirinta iyo nafaqaynta oo ixsaanka darajada ugu horreysa ah ee lagu farayo waxaana hoostiisa soo gelaya wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanan wax walba oo ixsaanoo wanaagah inaad ku hormariso oo iyaga kaga bilowdo intaadan carruurna siin xaasna siin cid kalena siin waxaa kaleeto oo ka mid ah inaadan agtooda iyo hortooda aadan dhibsan waxa ay ku odhanayaan ama waxa ay ku farayaan ama waxa ay doonayaanoo talaa inaadan muujin inaad nacayso oo kahanayso maxaa kuu taalla halkan walaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa
walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawla kariima. waxaan qowl kariim ahayn male hadday ku garaacaan iyo hadday ku caayaan iyo hadday si kale ku idhaahdaan iyo waxaadan raalli ka ahayn hadday sameeyaan. giddiba waxa weeye adiga xaggaaga kelimad inaad muujiso hortooda ah aad ku muujinayso inaad waxaa nacsan tahay amaad kahanayso amaad diidayso ama aadan rabin arrinkaas inaad muujiso kuma bannaana. bal waa inaad aad dhulka isugu dhigtaa. maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay wakhfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kama weliba duca ugu sii daraysaa waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira. xaggee arrinkaasu ka joogaa marka aynu waalidiinta markayna la hadlayan xaggaan usii jeednaa. gabadha xaggay usii jeedaa marka hooyadad la hadlayso. ninkuna wax kaluuba la hadlaaya marka waalidkii la hadlaayo. hada laysa min albir. baarinimo ma arrinkaas. haddaad isu malaynayso baarinimada ama cuquuqu inuu yahay keliya inaad ama caydo ama xumayso ama garaacdo keliya maaha cuquuqu intaa keliya maaha. walaa taqul lahumaa ufin bal wakhfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira. inaad dhibsato haba yaraatay ama muujiso xataa maaha. markay hadlayaanna waa inaad u dhegaysataa adigoo dhan oo wada dhegaysi ah dhega ah. jirkaagoo dhan waa inuu wada dhega yahay. marka ay hooyadu hadal soo qaado ama aabbuhu hadal soo qaado waa inaad wada dhegaysataa kulligaa. waxaa kaleetoo baarnimadaa ka mid ah inaadan codka kor ugu qaadin. codkaaga codkooga inuu ka sarreeya marnaba maaha. hooyada inuu hadalkaagu ka sara maro marnaba maaha ama aabbaha ka sara maro. waxaa kaleeto ka mid a hadal buu wataa ama hadal bay wadataa inaadan ka goyn hadalka ilaa ay dhammayso. baarnimadu taas waad ku cibaadaysanaysaa. waxaasoo dhan waa cibaado. ilahay baad ugu dhowaanaysaa leanno baarninimo hadalka inaadan ka goyn, inaad dhegaysato, inaadan la murmin oo la doodin, hadalka ku celcelin. hadhow haddaad rabto siyaabo kaleeto arrinka u maslaxa oo u tartiibi oo dad kale u adeegso, walaalaha la adeegso, cid kale la adeegso inaad qanciso. laakiin inaad la muranto saas maaha. saad sheegaysa waxba kama jiraan, waxba ma fahmaysid, duq yahay waxaad fahmaysa male, odayaho waxaad garanaysa male, kada inaad la muranto ma aha abadan. laysa min albir abadan. waxaa ka mid ah anwaacda baarinimada hadday hurdaan inaadan hurdada ka iscaajin ama ka kicin ama ku qaylin ilaa ay ka bogtaan raaxadooda ay ka bogtaan. had iyo jeer inaad tusiso inaad ka hoosayso oo u baahan tahay oo dhegaysanayso. hadalka waa inaad iyaga ku hormarisaa. socodka waa inaad iyaga ku hormarisaa aadan ka horeyn oo aadan ka hor dhicin adoo ixtiraam iyo qadarin iyo weyneyn arrinkaa u samayna. intaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha baarinimada aad ku samayn karto. waxaa kaloo ka mid ah inaad had iyo jeer u mahad celiso oo u shukriso oo u ducayso salaad walba aad tukato iyo waqti walba aad soo dhaqaaqdo. maxaa yeelay shukrigooda ayaa ilaahay shukrigiisa ku xariiri an ishkur lii waliwaalidayka sidaan sheegna. waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira. marka waa inaad ugu naxariisataa oo aad ugu mahad celisaa waxay sameeyeen. hooyada waxay si gaara u leedahay baarinimada 3 qaybood 4 qaybood marka loo qaybiyo 3 meelood hooyada nasiibkeeda u leh. bimacnaa bimasiid siyaado ayay u leedahay baarinimo ah iyado. oo ninka markuu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ya rasuul allah man axaqu nnaasi bixusni suxbati aw bixusni saxaabati, yaa dadka ugu xaq leh wanaag inaan kula socdo. wuxuu ku yidhi nabigu alayh sala slam ummuk. qaala uma man qaala ummuk. qaala uma man qaala ummuk. 3 jeer buu hooyadiisii. qaala uma man qaala uma abuk. aabbihina hal meel balasi. maxaa yeelay markay waalidnimadii iyo abuurkaagii iyo jiritaankaagii iyo korriimadaadii ay ka wada qayb qaateen arrimo gaar ah oo adag bay iyadu la gaar noqotay. waxay la gaar noqotay xamligii iyada uurka ku qaada, aabbu wax kama qaadan.
waxay la gaar noqotay dhalmadii iyadaa ku dhashay oo foosheedii ayaad ku dhalatay waxay la gaar noqotay nuujintii waxay la gaar noqotay intii kaleeto oo la xiriirtay hooyada iyo intaad yarayd ka warhayntaadii ayay la xiriirtay oo aabbuhu intaasba aan waxba ku lahayn intaa iyada gaar u leh saas darteed ayaa ilaahay waa caadileh iyada 3 qaybood baarinimadiisii marka waa iyada si gaar ah in loogu sameeyaa khaasatan iyadoo qof daciifa oo dumar ah xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin ilaahay subxana wa tacala iyadoo daciifa baa haddana xamligii iyo dhalitaankii iyo nuujintii iyo waxaasoo dhan waxay u siyaadiyeen dacfi markaasay ku sabirtay oo ku dulqaadatay saas darteed ayuu yihi nabigu calayhi الsalatu salaam ina allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaat kan hooyada keliya ku hadlay halkan maha aabbahana in caaqnimadiisa la ogol yahay laakiin waxaa lagu tusayaa hooyada inay ka sii daran tahay xaalkeedu inuu ka sii daran yahay oo halis yahay waxaa kaleeto oo ka mid ah anwaacdaas aynu ugu xisaanfalayno walaalayaal in amarkooda iyo dalabkooda iyo umuurahooda lagala hormaro dadka kale yani haddii raashin la qadimayo iyagaa la hormarin haddii cid wax laga bilaabay iyadaa laga hormarin haddaad safar ka timaad iyadaa ka bilaabay iyagaad ka bilaabaysaa wax walba iyagaad ku hormarinaysaa hadalka iyagaa ku hormarinaysaa iyagaa lagu tixgelinayaa inaad naftaada kula jihaado raalinimadooda sidaad u heli lahayd oo qalbigooda xataa haddii ay kayra muslimiin yihiin xataa hadday an muslimiin ahayn wain jaahadaaka calى an tushrika bima laysa laka bihi cilm falaa tuطichuma wasaaxibhuma fi dunya macruufan buu yidhi ilahay kuwii gaalada ahaa maxaa yeele waalidiinta xaqooda marna ma dhacayo markay weynaadaan waxay sii yeelanayaan xuquuq intaa ka sii weyn oo u dhimrin iyo u tartiibin iyo qalbigooda faraxgelin hadiyadda iyo waxsiinta iyo waxaanay filanayn uqaadidda iyo meelaha ay jecel yihiin raadinteeda arrimahaasoo dhan iyo ka ilaalinta wax kasta oo dhibaya marka ay weynaadaanna waa arrin looga baahan yahay habeen iyo maalin inaad ku soo jeedo oo aad ka warhayso maxaa dhibaya ma dhaxan baa hays ma kulayl baa haya xaggay seexdaan xaggay ku baryaan maxay cunaan maxay cabbaan maxay fuulaan maxay socdaan maxaa jira xaalkoodu see yahay inaad arrimahaasoo dhan waa arrimaha baarinimada lagu leeyahay dadka qaar baa waxay isaga haystaan inay tahay baarinimadu xogaa masruufahoo la siiyo keliya walaysa hada faqat baarinimadu intaa keliya ma baarinimadu intaa keliya ma waa kala gaar kala jaad weeye xaq inaad gudato oo aadan caaq ahayn oo aad masruuf u dirto laakiin inaad baarinimadii jannada lagu geli jiray shaqaysataa shaydkani waa adeer maaha saad u malaynaysa maaha shaka baarinimada uu leeyahay nebigu alayh salatu salaam janna lagu galay waxa weeye tii uu yidhi alzim rijlaha fahama aljanna lugteeda hoosteeda joog buu yidhi jannadii halkaasay taalla maxay tahay lugteeda hoosteeda joog ya waa arrimihii hadda aan soo sheegayno yaan lagaa waayin agteeda waxay doonayso waxay u baahan tahay ukeen raadi hooye haye xaggee u baahan tahay maanta xaggee ku geeyaa yaa maanta yaa soo siyaaranaysaa xaggan kaaga keenaa alaabtan xaggen kaaga soo qaadaa maxaad jeceshahay maxaad cabbaysaa maxaad cunaysaa xaggee seexanaysaa xaggee ku geeya xaggee kaa soo qaadaa alzim rijlaha waka ya maaha xooa masaariifa halkaa laga tuuraayo waa arrin fiican laakiin baarinimada darajadeedii maadan gaarin mana haysid waddadeedii mana haysid nafaqada waa waajib nafaqadood qul ma anfaqtum min khayri falilwaalidayn walaqrabiin hooyada iyo aqrabiinta masalan khaalada oo kale habaryartu waa bimansilati اlum binasi xadiisi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam nin kalena wuu weydiiyey cabdullahi bn cumar cabdullahi bn cabaas oo u yimi oo dembi weyn galay markaasuu yidhi hooyadaa ma nooshahay markaasuu yidhi maya markaasuu habaryartaa ma nooshahay markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi meeshii hooyada iyadaa joogta ee iyada xariiri
waxaa kaloo ka mida baarinimada anwaacdaas oad ugu baari falayso isti'daanahumaa qabla safar, inaad ka idin qaadato safar haddaad gelayso. cajiib, ma weydiisaan hooyada iyo aabbaha ma la weydiiya haddaad meel u safrayso ama meel aadayso, jaamacadaad aadi, meel kalead aadi, shaqaad aadi, waadanbaad aadi, ma la weydiiyaa? mase xisaabtan kuma jiraan? isti'daanahumaa qabla safar, intaadan meel u bixin waa in la weydiiyo. hadday kuu idmaan ahlan wasahlan, hadday idimi waayaan waa inaad raadiso sidaad idinkooda ku heli lahayd, idinkooda sidaad ku heli lahayd. haddii kale waa ka joogaysa arrinkaas, ilaa inuu jihaadku farducayn noqdo markaa, iyo xajka oo fariida isaguna ah fariido ilaahay ka horeysa. labadaas muwaafaqadooda kuma xiran, laakiin wixii ka soo haray laabudda. waxaa kaleetoo ka mid ah inaad u ducayso, ama joogitaankooda ama geeridooda kadib, waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiran, inaad kula xiriirto. waxaa ka mida walaalayaal aadaabtaas aad ilaalinayso, aadaab badan oo loo baahan yahay qofku inuu ku xiriiriyo oo baarinimada ah. laakiin macnaha meesha yaalla waxa weeye haddaynaan bahayn waalidiintiiba aynaan is arkin, ama aynaan laba joogin, ama hooyadii aynaan la joogin, si arrimahan u samayn karayna baarinimadan iyo waxa kan janno lagu shaqaysanayo xaggeen ka keenaynaa, seen ku helaynaa? ma bahayne. marka in waalidiintii laga warhayo khaasatan markay weynaadaan oo la ilaashado, waa janno kuu socoto oo kuu joogta meesha, inaad raadsato inay ku ag joogaan waa arrin loo baahan yahay in lagu dadaalo. waxaa ka mid a adaabta marka lala hadlayo saan sheegnay, wanaag inaad kula hadasho, wejigooda inaadan wajiga u kaduudin, xataa adigoo cadhaysanayn indhaha aada ugu fiirin oo ugu gubin, inaad ilaaliso sharaftooda iyo maalkooda iyo magacooda, inaad ilaaliso, inaad ku camal fasho wax allaale iyo wixii aad isleeda way farax gelin kartaa, inaad ka hor dhacdo oo aad soo samayso. si aad masalan inaad u adeegto, wax u soo gaddo, alaab u keento, waxyaalahaasoo dhan wixii ka maqanoo cilmiya aad ku kordhiso ay janno ku gaari lahaayeen, si tartiib ah oo aadaab ah, maaha si kibira oo waxba ma taqaaneen iyo waxba jahli weeye waxaad wadaan aan ahayn. hadday kula hadlaan ama kuu yeeraan, inaad markiiba ajiibto weeye, oo wax walbaad ka hormariso, wax walbaad ka hormariso bisurca, sida ugu dhaqsi badan inaad u ajiibto, oo aad tidhaahdo haye hooyo, haye aab, aad ku jawaabto, magacooda inaad inugu yeerin, inaad hagaajiso asdiqadooda iyo dadka iyaga saaxiibka laah, hooyada dadka islaamaha saaxiibka laah ay is yaqaaniin, qaraabaday yihiin, aabbahaa sidaas oo kale. hala murmin, ha cinaadin, oo waxa ay ku faraan waxaad ka hor keenayso oo cinaada ha samayn abadan. codkana kor ha ugu qaadin. hadday soo galaan ama meel aad fadhido soo galaan, waa inaad inta u istaagto, madaxa ka dhunkato, soo fariisiso, gacanta soo qabato, gacmahooda ka dhunkato oo soo dhawayso, oo ixtiraam ahaan u soo dhawayso. gabadho hadday guriga joogto waa inay hooyada kaalmaysaa, camalkay u baahantaho inay ku kaalmaysaa, oo guriga khidmadiisa, adeegiisa iyo waxyaalaha la mida inay ku kaalmeeyaan. hadday qolkooda ku jiraan, maaha inaad ugu gasho idin la'aan, khaasatan dhallinyarada iyo carruurta, inaad idin la'aan ugu galaan maaha. wakhtigooda hurdada in laga kiciyo lama khashkhashaado maaha. cuntadii in la cuno iyaga ka hor ama gacanta la geliyo maaha haba yaraatee. inaan been laga sheegin, beenna lagu sheegin. ilmahaaga iyo xaaskaaga waana arrimaha u badane oo dadka ka dhaca, inaadan ka fadli yeelin oo ka hormarin iyaga. waxaa soo baxay waayadan dambe iyo cusuurtan dambe dad ninkuu islaantiisu raaligelina xaaskiisa, hooyadiisna wuu ka caraysiina, walciyaadu billah, walciyaadu billah. meel iyaga ka sarraysa haddii la fadhiyo ha fadhiisan. hooyadaa dhulkay fadhidaa, adiga kursiga ku fadhiisanaysa, aabbahaa dhulku fadhiyaa, adiga kursiga ku fadhiisanaysa, meel ka sarraysa laa yajuus hada, ma banaano, aadaabta maaha.
raalinimadooda raadi xataa lugaha inaad ku fidsato oo hortooda waxaan adab ahayn ku samayso ma aha. ha ka faanin aabbaha inaad ku nasab sheegato ama ahaw brofesor ama ahaw doctor ama ahaw caalim laakiin ha ka faanin, marna kama faani karto. nin salafkii ka mid ah oo muxadisiinta waaweyn oo culimmada waaweyn ka mid ahaa oo ardaydu kumayaal ugu imaan jirta ayaa isaga oo ardaydii wax u dhigaaya oo intaa iyo in ka badan ay hor fadhido ayaa hooyadiis xagga intay uga dhawaaqday guriga markay tiri yaa shurayx, markaasuu nacam yaa ummi, markaasay tiri digaagga u daadi haruurkii digaagga u daadi. sheekhii dhammaa waaya oo meesha hor fadhiyay markaasuu soo kacay soo booday buu digaaggii wixii u daadiyey wixii kale soo kala hagaajiyey soo noqday. kama weynid aabbaha, kama weynid hooyada, hays sharfin. haddii ay kula nool yihiin waa inaad ziyaarada ku badisaa, booqashada habeen iyo maalin, galab iyo subax, wakhtigaad gurigaa gelayso. waxaa leeyahay abu hurayra radia allahu canhu markuu gurigiisa ka sii baxayana hooyadiisu sii mari jiray, markuu soo noqdo oo shaqadiisa ka yimaadana taanu gurigiisa gelin buu hooyadii soo mari jiray. haaday baarinimadu waa taas, baarinimadu waa taas. balse waa yadan dambe walaalayaalo waxaa la arkayaa qof le hooyaday 10 sano maanan arag, aabbahay 10 sano ma arag. acuudu billahi min dalik, hada alcuquuq 10 sano ma aqaan waxay ku nooshahay. maxaad korisaa, maxaad qabataa, shaqada haysaa maxay tahay, maxay waxaa ku nooshahay, maxaad haysaa ku maqanta, maxaase khayr ku dhaafay ma is weydiisay, maxaa ku dhaafay khayr. waxa weeye inaad marka ziyaaradooda badiso. hadday waddankaa fog joogaanna si allaale iyo sidaad ku raadin lahayd wakhti walba alal aqal dhowrkii bilood, 6dii bilood, sanadkii inaad mar soo ziyaarato oo muddo la joogto. haddii ay suurtogeli weyso inaad laba joogto ama meeshaad ku nooshaa ay kugula noolaadaan. inaadan nafaqada ku cariirin ilaa ay ashtakoodaan oo yidhaahdaan waxaas iyo waxaasaan u baahanahay, aada la sugto. caruurtaada iyo xaaskaagana waxaad ku shubaysaa waxaana u baahnayn. aabbaha iyo hooyadana waa baahan yihiin oo meel waxay ku nool yihiin daciifa. ayu birin haada. waxyaalaha dhacaya walaalayaal waxaa ka mid ah inaynu ku tacab khasaarayno. yacni haddii aad adigu waalidka aad sida ilaahay subxaana wa tacaala nafarayo nafaqadii iyo waxsiintii aad iyaga ku horumarinayso oo aad bilaa xisaab u siinayso, waxaad ka arkaysaa duriyaddaada ayaad ka arkaysaa iyo ilmahaaga. haddii kaletana iyagaa kaa goynaya. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay cuquubooyinka ugu daran inuu ilaahay soo hormariyo adduunka tii aakhiro iyadoo kuu dhimo waxaa ka mida cuquuqulwaalideynka. macnaa waxa weeye marka waalidiintii markaaad ciyaalkaaga iyo dadkaaga iyo xaaskaaga iyo waxaad ka hormariso oo iyaga saad doonto u raalligelayso, iyagana aadan raalligelintooda raadin ama isku dayin, ilmahaaga adigana kaa jaraya adduunka intaan aakhire la gaarin. inaad waxa weeye walaalayaal aad dadka ugu karaamo badan oo aad ugu karaamayso dadka inay noqdaan hooyada uma aabbaha oo iyagu jannadaadii iyo naartaadii ah. inaad ka digtoonaato inaadan caaq ku noqon
oo waxay ka caroodaan ama niyaddoodu ka carooto aadan samayn si aadan naar ugu mutaysan wax kastoo aad samayso habeen iyo maalin haddaad tukato oo habeen iyo maalin wax bixiso haddii qalbiga hooyadu ama qalbiga aabbuhu oo carab ku jirto janno saad ku aragtaa oo adag tahay janno saad ku aragtaa oo adag tahay haddaad wax ka dalabto ama wax weydiisato waa inaad si wanaagsan u weydiisaa oo hadal wanaagsan oo macaan oo qabow ku weydiisaa oo hoose hadday ku siiyaan ama kuu ogolaadaan ama kugu waafaqaan u mahad celi hadday diidaan u cudurdaar dalabaadkaadana ha ku badin iyo hadalka haddii aad adigu wax yeelatana kaalmay qof walba xaqiisa sii xaaskaagu xaq buu kugu leeyahy ilmahaagu xaq bay kugu leeyihin waalidiintuna xaq bay kugu leeyihin adaa la rabaa inaad kala hoojiso waxaa hadda ka hormari la soo hadlay islaan magaalada stockholm noo maraya waxay tidhi sheekhu ka waran haddii qof ilmaheedii wiilkeedii uu magaaladan ku nool yahay oo aanu u imaan oo aanu soo siyaaran oo bilan la maro oo ay ka soo wareegto bilo isagoona u imaanin oo islaantiisa xaaskiisa ka hormarinaya hooyadiisa raalinimadiisa ama igu caroonaya xaaskiisa darteed hadda ka hor ayaa waxaan ka maqlay qiso yaab leh dalkaas sacuudiga aan joognay nin ayaa hooyadiis daaweynaatay ayaa la deganayd marka waxay deganayd guriga fillooyin iyo waxbaa loo dhistaa meel sare oo qol ah oo la seexiyo dadka shaqaalaha meesha la seexiyo ayay deganayd hooyadu ninka iyo xaaskiisii carruursiina waxay ku jiraan guriga ku jiraan maalintii dambe ayay meel gaartay way soo noqotay markay soo noqotay waxay aragtay gurigiioo la xiray qolkii ay seexanaysay iyo wiilkeeda xaaskiisii oo meesha taagan oo leh qolka waan u baahannahayoo gabadha shaqaalaha baa noo seexanaysa markaasay ku tiri oo anigu xaggeen aadaya xaggeen seexanaya wallahi meeshaad aadayso adaa yaqaan ninkiina waa daba taagan yahayoo xaaskiisa gadaasheeda u taagan yahay markaasay tiri meesha aadayso adaa yaqaan shandadeediina bannaankaa loo soo dhigay shandadeedii bay qaadatay xaggey aadi waktigaas reer deriskoodaa bay u tagtay oo albaabka ku garaacday reerkii baa soo dhoweeyey maxaa dhacay saacaddan ku socodsiiyey oo magacaawan idinla baryayaabay tiri oo waa kaas gabadheedii bay teleefon u dirtay gabadhii baa waxay ku tiri ay tiri maandha ii kaalay oo iga kaxay meeshan gabadhii waxay ku tiri hooy kuma imaan karo oo ninkaygu maalintii dhaweydo aad labada maalmood nala joogtay ayuuba maaragtay qaati bilaahiya taagnaa hadda inaan kuu imaado ku soo qaado ma ii suurtoobi karto sidii bay kaga tagtay iyaduna oo iyadii meel cidlaa bay kusoo dhacday dadkii marka deriska ahaa iyo dadkii meesha joogay baa dad wanaagsani ku jireen oo qol inta u ijaareen qol dejiyey waxaa saa lagu samaynaya waa hooyo nin kalena wuxuu sheegay nin kale hooyadiis xaaskiisii baa ku taagnaatay weligiina waad ogtihiinoo waxaa u dhexeeya isqaniin baa u dhexeeya hooyada iyo xaaska haddaan ilaahay u naxariisa gabdhuhuna waa inay ilaahay uga baqaan hooyooyinka ninkan adigu ma aadan soo dhalin uurna ma aadan ku soo qaadin ma aadan soo korin ma aadan soo nuujin markuu dhibka badnaa oo kaadi iyo xaar ahaa ma aadan adigu kuma soo rafaadin isagoo weyn oo barafuun le baad aragtay
hooyadiis marka waa inaad ilaahay uga baqdaa oo ilaahay uga cabsataa oo aadan ku dirin oo aadan ka goyn maxaa yeelay haddaa adigu saas samayso gabaryaha adigana carruurtaada saa kugu samaynaysa hadaad ninkan hooyadiis iyo aabiis ka goyso adigana carruurtaada kaa goynaysa gabadhaas waxay samaysay marka waxay tiri hooyadaa baa isixirtay hooyadaa baa maaragtay waxaas iyo waxaas nagu samaysay hooyadiis bay ku taagnaatay islaantiina waxay leedahay war waxaas anigu maanan samayn nin sheekoo marka imaam masjiday u yimaadeen oo wuxuu yidhi waxaa ii yimi ninkii iyo walaalkiisoo ka weyn waxay leeyihiin na kala xukun marka islaantiina waa calacalaysaayo duqdii maamadu waxay leedahay war anigu waxaa maanan samayn maanan ku sixrin gabadhii waxay tiri yani wiilka xaaskiisii meel aan kacbada ahayn oo dhaartaada aan ku aqbalaya ma jirto kacbadana gee ha ku dhaarato halkaa hadday ku dhaarato halkaasaan kaga haray meeshii baa la tegey kacbadii baa la tegey hooyo oo haddana dulman bal ka waran adig waxay noqotay marka meeshii markay ku dhaaratay inay ilaahay u tadarrucdo dulmiga ay ku samaynayaan wiilkeeda iyo xaaskiisa wuxuu leeyahay wiilkii weynaa oo hooyadiis isagu kaxeeyey oo soo celiyey markaanu kacbadii ka soo noqonnay oo aan maamadiina meel aniga soo qaaday gaari soo saaray ninkii iyo walaalkay iyo xaaskiisiina gaari kale ay fuuleen magaaladii kale markaanu nimo soo noqonnay waxaan maqalnay intay jidka soo socdeen in gaarigii la gadoomay meesha ay ku dhinteen waa wiilkii iyo xaaskiisii waa inaad aada uga cabsataa ducada waalidiinta ducadooda waa mustajaab xagga khayrka iyo xagga sharta labadaba waa inaad marka ka digtoonaataa xagga sharta inay kugu duceeyaan ama kugu habaaraan haddii aad wax isku khilaaftaan oo ama wax sharciya gabadhan fur sidaan yeel waxaan yeel wax sharci ay tahay waa in arrinka si aadaabsan oo usluubaysan oo aan khilaaf iyo ku qaylin ayan jirin sharciga aad ugu bandhigtaan oo cid sharciga ku kala xukumaysa oo adigiina aan dhibi kugu soo gaarihayn inaad samayso wey inaad ziyaarato wey noloshooda iyo bacda mowdkoodaba oo aad wax u sadaqayso oo sadaqada u badiso oo ducada u badiso oo aad tiraahdo rabbi ikfir lii waliwaalidaya warxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira sidaynu nebiyada ka barannay waa nabiy llaahi nuux calayh salaam rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'minan nabiy llahi ibraahim rabbi ikfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab inaad waalidiinta u dembi dhagto hadday muslimiin yihiin gaala hadday yihiin waa la diiday in loo dembi dhaaf weydiiyo oo nebiga calayh isalaatu wasalaam markuu maka u socday fatxigii wuxuu dalbaday qabrigii hooyadiis inuu siyaarto waa loo ogolaaday inuu siyaarto laakiin waxaa loo diiday inuu dembi dhaaf u weydiiyo marka asxaabtu radia allahu canhum waxay leeyihiin maalintaas nebiga calayh isalaatu wasalaam aan raacnay oo aan qabriga hooyadiis la tagnay aad buu u ooyey nebigu calayh isalaatu wasalaam maalintaasoo kala soo ooyey maanan arag bay yidhaahdeen asxaabtu ridwaan ullahi tacaala calayhim haddaan walaalayaal wax ka soo qaadno waa qodobka afraade dadkii salafka ahaa sida ay yeeli jireen bal qaar ka mida moxamed ibn almunkadir waxaa la yidhi intuu dhabankiisa dhulka dhigo ayuu hooyadiisu wuxuu odhan jiray quumii daci qadamaki calaa khaddi hooyo istaago lugtaada dhabankayga saar
وحلي عروة بن الزبير رضي الله عنهما عروة وتابعي زبير بن العوام بعد عليه رضي الله عنه ما بر والده من شد الطرف إليه قف عندها كوكل ليه وكأتكي والد كيس بارهنما مو ينفلين بأورنجري markuu dhintay cumar ibni dar qaaluu waxay yidhaahdeen liabiihi dar aabbihiisay weydiiyeen oo kayfa kaanat cishratuhu macak sidee buu wiilkan dhintay nin saalix u ahay wanaagsana kuu ahaa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi maa mashaa macya qad fi leylin ilaa kaana amaami habeen hadduu i raaco buu yidhi weligiis hortaydu socon jira ila waa habeen oo wuxuu doonayaa inuu ka ilaaliyo wax allaalayo wixii dhiboo iman kara walaa mashaa macya fii nahaarin qatun ilaa kaana waraa'i maalin hadday tahana weligiis gadaasheedu socon jirin wala artaqaa sadxan qad kuntu taxtahu weligiisna dabaq ma fuulin buu yidhi anigaan hoostiisa ku fadhiyo dabaq guriga haddii lagu nool yahay dabaqa sare weligiis ma fuulin haddaan anigu hoos joogo caliy ibn اlxusein radia allahu canhuma xusein ibn caliy ibn abi aalib weeye oo cali ibn abi aalib baa u ah awowe cali ibn xusein zayn alcaabidiin weye waxaa la yidhi hooyadiis inuu wax la cuno marar badan uu ka biqi jiray oo hal maa'ido uu kula cuno wuxuu odhan jiray akhaafu an tasbiqa yadii ilaa maa sabaqat ilayhi wax isheedu u hormartay ayaan ka baqayaa inay gacantaydu u hormarto oo fa akuunu caqaqtuhaa aan noqdo nin markaa hooyadiis caaq ku noqday maxamed ibnu siriin taabiciga weyn ee jaliilka ah ee muxadidka ah raximah اllahu tacaala waxaa la yidhi hooyadiis markuu ag joogo waxaa loo malayn jiray inuu xanuunsan yahay sida uu isugu dulaynayo ama uu hooyadiis hoosteeda ku yahay waxaa la yidhi balaqat الnakhlatu fi cahdi cuثmaan ibni cafaan 1000 dirham geedka timirta ah cahdigii yani waqtigii cuثmaan ibni cafaan radi allahu canhu waxay gaartay 1,000 dirham marka geed ayuu wuxuu ka soo gooyey laan oo hooyadiis uu maaragtay uu siinayo waxay ku yidhaahdeen maa yaxmiluka calaa hada maxaa arrinkan kugu kalifay adoo arkaya geedka timirta intuu gaaray wuxuu yidhi ina ummii sa'alatnii hooyaday baa i weydiisay buu yidhi walaa tas'alnii shay an aqdiru calayhi ilaa acطaytuha mana jiro shay aan awoodi karo i weydiista ilaa waan siiyaa caaisha radi allahu canha waxay tidhi laba nin oo asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid a rajulaani min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalama abaru man kana fi hadihi اlummati biummihima labada ninoo ugu baarinimo badan bay ahaayeen hooyooyinkood ummadaan intaanu aragnay cuثmaan ibni cafaan wa xaarisata ibni nucmaan radia allahu canhuma xaarisana cuثmaanna waa garanaysaanoo waa min ahli اljanna waa khaliifatu الthalith xaarisa ibnu nucmaanna waa ninkuu nebigu calayh الsalatu wasalaam intuu yidhi jannadan galay habeen baa laysuliyey oo jannadan galay markaasaan waxaan maqlay qur'aan qof akhrinaya oo iga qarsoon markaasaan waxaan idhi wariyuu yahay ninka qur'aanka akhrinaya oo jannadan ku dhex akhrinaya markaasaa la yidhi wa xaarisatu ibnu nucmaan markaasuu yidhi nebigu alayh salatu wasalaam kadalikum اlbiru kadalikum اlbiru kadalikum اlbiru baarinimadu saasay yeeshaa baarinimadu saasay noqotaa baarinimadu saasay noqotaa ninkaasu jannadii inuu ku dhex dabaasho ayaa ilaahay ku dhexal siiyey marka labadaa nin maxay samayn jireen waxay leedahay caaisha radi allahu canha faama cuثmaan fainahu qaala wuxuu yidhi maa qadartu an ata'amala ummii mundu aslamtu ilaa maalintaan islaamay hooyaday wejigeeda inaan si fiican u fiiriyo imama suurto gelinba ixtiraam iyo haybad anu qabo wa ama xaarisa fainahu kana yaflii ra'sa ummihi hooyadiis intuu madaxa ka fadhiisto yuu timaha uga saari jiray waxa ku jira iyo waxa maaragtay qanaca waxa fuula saxarada fuula waxa fuula ayuu boorka waxaas timaheedu saasuu u fegi jiray wa yuطcimuhaa biyadihi gacantiisuuna ku quudin jiray afka ku siin jiray cuntada gacantiisu ku siin jiray walam yastafhimha kalaaman qatu ta'muru bihi weligiisna hadal ay amartay oo uu fahmi kari waayey ma uuyan weydiino maxaa tiri mauyan dhihin
xataa yas'ala man cindaha ilaa u weydiiya dadka agtiisa oo yaqraahdo bacda an yakhruja maa araadat ummi hooyaday maxay doontay inuu markaa yidhaahdo. maxamed ibn almunkadir wuxuu yidhi aniga walaalkay isna habeenkii baryey isagoo habeenkii oo dhan salaad u soo taagan, aniguna waxaan baryey habeenkii oo dhan anigoo hooyaday lugaha u duugaya. wamaa uxibu ana laylatii bilaylatihi ma aanan qaateen buu yidhi habeenkiisa in habeenkayga laygu bedelo ma aanan qaateen. kahmas wuxuu ahaa nin sheekha, wuxuu yidhi waxuu ka shaqayn jiray dhoobada iyo dhagaxa si uu 2 dirham u soo kasbo 2 daanaq. galabtii markay noqoto faakihu ku soo iibin jiray fruit, markaasuu hooyadiis u keeni jiray. haddii aan wadno ma dhammaynayno, laakiin salafkii ridwaan ullahi tabaaraka wa tacaala calayhim rag culimmadii ka mid a waxay ka reebtay inay cilmigii u safraan, waxaa ka reebay ilaalin ay ilaashanayaan hooyada inay ag joogaan oo ay u baarinimo falaan. haddaba waxaan leenahay walaalayaal, zamanadan dambe waxaa soo baxday caaqnimaa soo baxday badan, wax badan baa soo baxay. haddii aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey waalidiin adduunka dul jooga, waxaan leenahay ninkaasow jannaad haysataaye jannadaasna waa adigu iska dayac. meelaha aad ka raaraadinayso iyo meelaha fogfogooda adaysana ma jirta, jannadii waatan fa thumma aljanna, hooyadaa lagu heday hoos taallaa ee ka faa'iidayso oo jannada ma shaqayso ama iska dayac adiga kuu taallaa. haddii ay dhinteenna waxaa inoo yaal qaraabadoodiioo la xiriiriyo, asxaabtoodiioo la xiriiriyo, sadaqo badan oo laga bixiyo, in loo duceeyo, in wax awqaafa loo sameeyo masaajidda iyo ceelasha iyo meelaha iyo wax loogu daro, in wax jaari ah oo aakhiro ku gaara in loo sameeyo. walaalayaal, baarinimadu waxaan ku soo khatimayaa waalidiinta waa baab weyn oo aad u ballaaran, dadkuna moog yahay, innaguna haafil ka nahay sida xaqiiqada ah. aadaabtiisii iyo axkaamtiisiina wax badan aynan ka ogeyn, aynuna isaga malaynayno hadal afka laga yiri. ee waxaan leenahay aan ku dadaalno jannadaas guryaha inoo joogta ama adduunka dul saaran, nin walba inta goorigoor tahay jannadaas sidaad u qabsan lahayd raadso. ninkay ka fog tahay hooyadiisa ama aabbihiisu ka fog yahayna si degdeg ah oo aan yacni lahayn tawaani. dadka qaar ba waxay ku oranayaan samarkaan fiirinaya, sanad ka dambaan balaangaraynayaa inaan tago, xisaabtaba ma ugu jirtaba. waa miskiin, waa qaafil wey, wuxuu kala ogyahay male qofkaas. waa miskiin wey, ya miskiin wey, qof dhintay wey qofkaas. marka waxaan leenahay walaalayaal, war jannadaas soconaysa oo agtiina taalla haddaad haysataanna ku fara adayga oo raadsada meeshay joogta ugu taga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaada. hadday tageenna albaab aad kaga shaqaysataad haysataa sidaan sheegnay ka shaqayso. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu annagana baari naga dhigo, duriyadeennana baari nooga dhigo. ilaahay subxaanahu wa tacaala naguna irsaaqo baarinimo, jannana ilaahay subxaana wa tacaala nagu irsaaqo. wixii aan dembi galnay ama qusuur ama gaabis naga yimina ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga dhaafo. ilaahayna inaan toobad ula soo noqonno oo maanta laga bilaabo waalidiinteeda sida aan ku wadna aan ka dayno oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaano. sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alih wasaxbi wslm. sheekh maxamed jazaaka allahu khayran khayra aljasa in sha allah. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuugu daro miisaankaaga xasanaadka maalinta aysan jirin meel kale iyo wax kaloo loo noqda. ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha kuugu daro. muxaadaradii uu sheekhu inoo soo jeediyey oo ku saabsanayd ubaarinimada waalidka oo wada dhegaysanay in sha allahu tacaala. intaasay ku egtaa uu sheekhu idiin sheegay. waxaan isku dayi doonaa in sha allahu tacaala inaan isku dayno mawduuca aan dhegaysanay wixii su-aale ka yimi. laakiin waxaan idiin sheegi haddii si wacan muxaadarada u wada dhegaysanay, su-aalaha soo qorteen qofkii soo qoray yani uu soo qoray inuu ka heli karo iyada jawaabta. waxaanay u badnaayeen su-aalaha soo qorteen 2 jawaabood. marka waxaan isleeyahay labadaba waxaa ka heshan muxaadarada gudaheeda oo ah tii uu sheekhu ugu dambaysa u sheegay hadda ah.
waalidkay wuxuu joogaa waddankii Soomaaliya anigu halkan aan joogaa sideen yeelaa iyo hadday dhinteen iyagana maxaan u sameeyaa marka waxaan u malaynayaa labadaba inuu sheekhu uu ku sheegay muxaadarada marka insha allahu tacaala waxaan uga gudbi doonaa su'aalaha kale ee u dhow kuwaas ee mawduucu uu leeyahay waxaa ka mid ah sheekh su-aasha koowaad oon raba inaan halkan ka soo jeediyo iyadoon wakhtigu uusan badnayn waxaan joognaa halkan waxaanan ku haysanaa carruur waxaan isku daynaa inaan iyaga xanaanayno oon tarbiyayno laakiin waxaa noo muuqata inay adag tahay inaan ilmaha iyaga ka dhaadhacsiino siday annaga ha dhowto baariyaal noogu noqon lahaayeen maxaan samaynaa annagoo halkan joognaa habkee ama sidee uga dhaadhacsiinaa qiimaha uu waalidku leeyahay ilmaha halkan ku barbaaray ama ku dhashay alxamdu lilah ninka shaacirkaa wuxuu yidhi biru aabaa'akum tabirukum abnaa'ukum haddaad doonayso ilmahaagu inay baari ku noqdaan waxaad tusisaa waalidkaa sida adigu baari aada ugu tahay waa inaad si camaliya tarbiyadu u noqoto laakiin ilmahaagu haddaanu arag adigu sidaad baari waalidka ugu tahay sidee isagu hadhow baari kugu noqonay xaaladaasu hadhow way adkaanaysaa waxa weeye marka dhinacna waa waxsheegid oo waa nadariyad in la tuso dhinacna waxa weeye inuu ku arko waalidka adiga oo madaxa ka dhunkanaya adiga oo fadhiga kusoo dhoweynaya adiga oo quudinaya adiga oo cuntada siinaya marka haddii ayan waalidkiin la dhoweyn tarbiyo camaliya in la helo weeye kaxaya oo waalidkaa u geeya kolalka qaarkood oo ha arkaan oo ha kula siyaartaan haddii ay suuragal tahay oo aanay surtoobi karin in meel lagu wada noolaado oo ummad shataad ku jirta aan nahay oo dhibaataysan oo qax iyo rafaad ku jirta cala al aqal waa in loo tago oo kolalka qaarkood la siyaarto adoo ilmihii wada oo waalidka aad tusiso oo uwahood iyo iyadood aad tusiso oo adigu sida aad ugu baarifalayso ay arkaan arrinkaas camaliga ah ayaa ugu wanaagsan tarbiyada wallahu aclam su-aasha kale xigta waxay leedahay isla mawduuca ku dhow sheekh iyamaan hormarinaa jihaadka fardulcaynka ah iyo u baarinimada waalidka keebaan hormarinaa alxamdu lilah dad hadday muslin ah meel joogaan oo gaala ku soo duusho meeshaa dadka jooga weeye waxay ku noqonaysaa fardulcayn dadka meeshaa joogo markaasoo kale jihaadku markaa idin ma laha oo waalidka idinkiisu markaa shardi maaha hadduu fardulcayn noqdo jihaadku ama haddaanu markaa adiga farducayn kugu ahayn ama aad ka fog tahay meesha markaa dagaalku farducaynka ku yahay waalidka ayaa horeeya wallahu tacaala aclam su-aashan kale waxay leedahay sheekh hooyaday ayaa waxay igula talinaysaa inaan soo geliyo waddanka ninka walaashay qaba oo aan ku soo geliyo guur ahaan inaan anigu uu ninkaygii yahay marka ma hooyaday baan ku adeecaa oo dumaashigay baan idhahdaa waa ninkaygii mise maxaan sameeyaa sheekh alxamdu lilah waxaan sheegnay waalidka waa la adeecayaa amarkoodana waa la qaadanayaa wixii aan ahayn macsi ilaahi subxaanaه wa tacaala id laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq marka arrintaasuna waa arrin dee khilaafsan shareecada hadday shareecadii khilaafsan tahayna waalidka looguma hogaansamayo laakiin waalidka inaad raalli geliso oo siyaabaha aad ku raalli gelinayso adoo aan amarkaa fulinayn ayaa lagaaga baahan yahay inaad iswaafajiso wallahu aclam su-aashan kale iyadana waxay ku soo noqonaysaa carruurta halkan joogta iyo waalidkooga iyo dadka ay bulshada ay la nool yihiin sheekh maxaan samaynaa carruurta halkan joogta haddii bulshadii ay la joogeen dadka aan yani aan ahayn muslimiinta ay u jeedaan sida ku qoran maxaan samaynaa
dadka ay uga xoog roonaadeen waalidkii ilmaha dhalay dadka aan muslimka ahayni maxaa la yeelayaa ma meeshooda iyagoo jooga lagu booqanayaa oo aad ka warhaynaysaa mise wax kale ayaa bannaan oo waxaan qaadanaa waa layga xoog roonaaday ilmahayga cid kalea la wareegtay oo wax aan samayn karayaa haba yaraatee ma jirto alxamdu lilah waxaan u malanayaa ilmaha iyo joogitaankooda dhulalkan iyo arrimahaas wax badanaan ka hadalnay oo iyada hadda kusoo celcelin uma baahna ilmaha waxa weeye si uu u barto yacni tarbiyadii islaamiga ahayd oo kaamilka ahayd waa inuu helaa bii'a islaamiya iyo environment islaamiya waa inuu helo weeye marka taasna waalidka ayaa mas-uulka ah oo waxa weeye mirihii aad beerto unbaad guranaysaa inaad adigu marka ku dadaasho ayaa loo baahan yahay sidaad bii'a islaamiya ilmaha u geyn lahayd waana loo ka adkaadayna hadhow xujo keligeed ma noqonayso haddii aadan asbaabtii sharciga ahayd aadan qaadan oo aad wax ku badbaadin lahayd wallahu tacaala aclam labadii muxaadaree baxay su-aalaha ugu badan ama dadku soo codsanayaan maanaan hilmaamin oo ah dad badan oo xanuunsanaya qaar carruurta ka xanuunsanayaan qaar waalidkood ka xanuunsanayaan qaar dhibaato kala haysato dhammaantood waa ognahay mar walba oo muxaadaro yeelano ama culimmadu wada joogaan ama qaarkood joogaan way isu soo koobaynaa waayo aada ugama gaadhno inaan qof kasta tiisii si gaara u tilmaano laakiin sheekh maxamed dadku aad bay usoo codsanayaan dhibaatadaas caamka iyo mid gaara qof ka hayso oo xanuun u badan ilma hadday yihiin waalid hadday yihiin qof kaloo dhibaataysan mid oo camaliyad sugaya ama qaliin oo ilahay ka rajeynaya ilahay inuu u fududeeyo sheekh maxamed waxaan rabnaa insha allahu tacaala intaynaan gabagabayn su-aalaha waxaan rabaa inaan tan soo horreysiiyo oo dadka aadka u fara badan kuwa dibadda ka soo qortay kuwa joogaba inaad markaasi codsigaasi ducada aad sheekh kusoo dhawaatid alxamdu lilah jalsadeenna in sha allah waxaan ku khatimanaynaa ducadaas ilaahay subxaanah wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subxaanah wa tacaala jidkiisa toosan nagu hanuuniyo ilaahay kuwa xanuunsan inuu ilaahay caafiyo kuwa maaragtay waddada ka lumay inuu ilaahay soo hanuuniyo ilaahay jidka ku soo celiyo ubadkeenna inuu ilaahay islaaxiyo durriyaddeenna inuu ilaahay islaaxiyo wiilasheenna iyo gabdhaheenna inuu ilaahay islaaxiyo guryaheenna iyo dumarkeenna iyo carruurteenna iyo raggeenna waa inuu ilaahay islaaxiyo ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteenba inuu hanuunka nagu irsaaqo jidkiisa toosanna ilaahay nagu sugo kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu ilaahay nagu sugo ilaahay dembigeenna inuu dhaafo ilaahay dembigeenna iyo dembigii waalidiinteenba inuu dhaafo janno inuu ilaahay nagu kulmiyo ilaahay subxaana wa tacaala towbad saalixa inuu ilaahayna waafajiyo qabriyadeenna inuu ilaahay nuuriyo sakaraatulmowtkana inuu ilaahay noo fududayo ilaahay qabriyadana noo waasiciyo qabriyadana ilaahay aanu mugdi nagaga dhigin ilaahay noo nuuriyo siraadkana ilaahay nagu sugo maalinta qiyaamana kurbadeeda ilaahay naga faydo ilaahay kuwa harkiisa harsadana ilaahay naga dhigo janno kuwa u tallaabana inuu ilaahay naga dhigo dembigeen iyo dembiga waalidiintanba inuu ilaahay dhaafo muslimka meel kastoo joogaan inuu ilaahay guul iyo nasri siiyo ilaahay ruxmaha subxana wa tacaala rucbiga iyo dhibtana inuu ilaahay ka dulqaado waddamadooda inuu ilaahay xoreeyo ilaahay gumaysiga iyo dhibaatada inuu ka dulqaado meel kastoo ay joogaan ilaahay nasri iyo guul inuu siiyo muslimka meel kastoo ay joogaan gaaladana inuu ilaahay ku jebiyo meel kastoo ay joogaan sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam waxaan idinka codsanayaa ma dhammaynina inay dhegaysataan insha allah yar bay noo dhiman marka aada u dhegaystay insha allahu tacaala intaanan gabagabayn waxaan rabaa inaan idiin sheego iclaanka jira oo ugu muhiimsan oo ku saabsan maadaama dalal badan iyo waddamo badan ka